habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorkareen aan caawadeedin haynana waxa kamid ah al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday deegaanka Janaaye Cabdalle madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay inuu diyaar u yahay wada hadal uu la galayo al-shabaab wasiir ku-xigeenka diinta iyo waqaafta oo ka hor yimid magacaabista guddiga adeega xajka ee sanadkan sidoo kale qodobada caawan idin hayna waxa kamid ah Somaliland oo madafiic loo meelday ku garaacday magaalada Laascaanood madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo shaaciyay in ay ka qayb galayaan dagaalka Laascaanood iyo mucaaradka Turkiga oo ku heshiiyay musharaxa ka hortagaya Erdogan markale habeen wanaagsan daawadayaal waxaan haynahay haatana u diyaar garooba qodobadii aad daawateen oo intaas ka faahfaahsan aan ku bilownaa caawa al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday deegaanka Janaaye Cabdalle faahfaahinta warkaas waxa eegaya wariyaheena Cabdicasiis Xidig warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay weerar ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo ay al-shabaab saakay aroortii hore ku qaadeen saldhig ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Janaaye Cabdalle ee gobolka Jubbada Hoose sida wararku sheegayaan waxa weerarka oo qaraxyo ku bilowday xigay dagaal toos ah oo xirada dhexdeeda ku dhexmaray shabaabkii soo weeraray xiradaasi iyo ciidamada dawladda waxaana halkaasi ka dhashay qasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in al-shabaab ay cagta mariyeen saldhigii la weeraray kadib qaraxyo iyo dagaal culus oo halkaasi ka dhacay wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro qasaare lixaad leh oo ka dhashay weerarkaasi waxaana ku dhintay saraakiil iyo askar badan oo ku sugneed saldhigii la weeraray ee deegaanka Janaaye Cabdalle saldhiga la weeraray waxaa degnaa ciidamada Mareykanka uu tababare ee danab iyo kuwa maamulka Jubbaland iyada oo la maqlayay hubka culus oo ay labada dhinacba isweydaarsanayeen waxaa la xaqiijiyay in dadka ku dhintay weerarkaasi uu ku jiro sarkaal lagu magacaabayay Carab Maxamuud oo kamid ahaa ilaalada madaxtooyada Jubbaland ee halkaasi ku sugnaa shabaab waxa ay sheegatay inay la wareegtay gabi ahaanba xirada oo ay cagta marisay ciidamadii saldhigaasi ku sugnaa ma jirase ila madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada kooxda al-shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in weerarkaasi ay ku qabsadeen ilaa iyo 11 gaari oo ay 7 kamid yihiin kuwa dagaalka weerarkan la mid ah oo ka dhacay deegaankaasi Janaaye Cabdalle bishii September 2020 ayaa waxa ay al-shabaab ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada danab ee Mareykanka uu tababaray halkaasi oo qasaare xoogan uu xilligaasi ka dhashay qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in weerarka oo gaadmo ahaa uu dhacay xilli aroor ah isla markaana ay jiifeen inta badan ciidamadii degnaa saldhigaasi taasi oo fursad badan siisay xoogaga al-shabaab ee weerarka la beegsaday xirada Janaaye Cabdalle xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maleeshiyaadka kooxda al-shabaab barahooda internetka ayaana waxaa lagu qoray in haatan ay saldhigii la weeraray ku sugan yihiin dagaalamayaasha kooxdaasi al-shabaab dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada dawladda ee ku aadan weerarkaasi qasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay xirada ciidamada danab ee Janaaye Cabdalle muddooyinkii u dambeeyay kooxda al-shabaab ayaa kordhisay weerarada dheelmashada ah kuwaasi oo qasaare lagu gaarsiiyay ciidanka huwanta ah ee howlgallada ka wada gobolada dalka madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wada hadal inuu la galo al-shabaab faahfaahinta warkaas waxa eegaya wariyaheena Cabdullaahi Cabdi Xuseen نحن مستعدون لذلك لكن لدينا شروطنا ولديهم شروطهم عندما تسمح شروطنا لشروطهم بأن نجلس سوية سنفعل ذلك غالبا madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wareysi dheer siinayay telefishinka caalamiga ee Al-Jazeera ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah gaar ahaan ammaanka guud ee wadanka qorshaha la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday wada hadalka al-shabaab wuxuuna shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay hase ahaatee madaxweyne xasan sheekh ayaa shuruud adag ku xiray wada hadalka al-shabaab kuwaas uusan ku dhaxusin wareysiga uu bixiyay sidoo kale madaxweynaha ayaa sababta ku sheegay in ragga u dagaalama kooxda al-shabaab ay u badan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan haysan wadamo kale ay aadaan balse dawladdiisu ay albaabada u fureyso qaab kasta oo lagu soo celin karo
الموجودون داخل الحركة نحن لسنا ضد dadka al-shabaab u dagaalama waxay u badan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed mana haystaan wadamo kale oo ay ku noolaadaan marka dawladda albaabada ay u fureysaa ayuu wareysiga ku yiri madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale waxa uu ka waramay howlgallada ka dhanka al-shabaab isagoo sheegay in shabaab aan looga adkaan karin awood ciidan oo kaliya sidaas darteedna ay dawladdiisu qaaday istiraatiijiyad dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin ciidanka diinta iyo dhaqaalaha محقون في القول حل المشكلة ليس فقط حلا عسكريا فنحن نحاول حل هذه المشكلة على مدى 15 عاما بالطرق العسكرية. الآن طورنا استراتيجية تحتوي 3 ركائز أولها الاستخدام العسكري وهي مهمة دائما ونحن نستخدمها واستخدمناها في الماضي ونستخدمها الآن. البعد الآخر هو الأيديولوجية. الشباب يقدمون أنفسهم على أنهم حركة دينية أساسها الإسلام والشعب الصومالي كله مسلم 100% وهم كلهم سنة. waxa uu kaloo intaas ku daray in dawladdiisa oo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalada military isla markaana dhul badan laga qabsaday al-shabaab kaasoo ay maamulayeen in ka badan 15 sano. dagaalka saddexda gees ee militariga dhaqaalaha iyo fikirka waa qorshe guuleystay. dagaalka tooska ah waxaa lagu xoreeyay dhul baaxad weyn oo qiyaastii 15 sano ay joogeen. dhanka maaliyadda waxaa la xiray oo la xayiray lacagaha ay sida baadda ah uga qaadan jireen shacabka Soomaaliyeed. ayuu wareysiga ku yiri madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad dagaal oo ka dhan ah al-shabaab taas oo ka dhalatay xaalad ammaan oo hor leh kadib markii ay kordheen weerarada al-shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada caasimadda ah Muqdisho. haatana Laascaanood Somaliland ayaa madaafiica loo meeldayin ku garaacday magaalada Laascaanood iyadoo uu dhanka kalena madaxweyne ku-xigeenka Puntland shaaciyay in ay ka qayb galayaan dagaalka Laascaanood. waxaa faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan duqeyn maanta ay ciidamada Somaliland ka geysteen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. goobjoogayaal ku sugan magaalada Laascaanood ayaa sheegay in maanta tiro madaafiic ah ay ku soo dhacday magaalada inkastoo aan la shaacin khasaaraha ka dhashay madaafiicda maanta Somaliland ay ku garaacday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka ka soconaya xarunta gobolka Sool ee Laascaanood. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa soo hadal qaaday hadalkii madaxweyne Deni ee ahaa in uusan Puntland ay qayb ka ahayn dagaalka. madaxweyne Karaash ayaa sheegay in Somaliland ay xasuuq ka geysatay magaalada Laascaanood asagoo ugu dambeyntii u mahad wakiilada dawladda Itoobiya ee dhexdhexaadinta ka wada magaalada Garowe. wadada socotaan runtii waxaan u mahad celinayaa dadka ka qayb galay ee shacabka ah ee tolka ah ee ka qayb galay naf iyo maalba aad baan ugu mahad celinayaa. waxaa jirta waan cambaareynaa runtii dadka shacabka ah ee madaafiicda maxay ahayd muddada hadda bisha ka badan madaafiicda lagu gumaadayay ee genocide-ka ah aad iyo aad baan u cambaareynaa. waxaan soo dhaweynaynaa dawladda aynu maxay tahay dariskana Itoobiya oo runtii ka shaqaynaysay nabadeynta iyo inay joojiso dhiigga qulqulaya. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaan maqlayay runtii positionka Puntland dhowr goorna waa la sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyadoo qoraal iyadoo afaba dhowr goor buu sheegay. waxa kale oo isna cadeeyay madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Deni oo habeen dhoweyd khudbadiisii ku daray positionka waan ku raacsanahay. positionkaas waa wuxuu yidhi anagu kama qaybnihin xoogaa baan kaga gedisanoo kama qaybnihin buu yidhi kamana qayb noqon doono kama qayb noqon doonaa taas runtii xoogaa waa ku kala gedisanahoo haddii loo baahdo waa ka qayb noqon doonaa. waayo ma eegan karo dadkii Puntland reer Puntlandka ahaa oo la gumaadayo lama eegan karo. laakiin hadda baahidii iyagaa ku filan waqtigan xaadirka ah. laakiin haddii loo baahdo waa laga qayb galaya. waxaan noo ogolaanayaa dastuurkay ku taallaa inaanu xuduudaha aanu maxay tahay daafacno iyo dadka reer Puntland taana intaasaan
ka odhanayaa aad iyo aad baad u mahadsan. weli waxaad daawanaysaan warka VOF News. haatana wasiir ku-xigeenka diinta iyo awqaafta ayaa ka hor yimid magacaabis guddiga adeega xajka ee sanadkan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Shariif Sayid Cali ayaa ka hor yimid guddiga adeega xajka sanadkan 1444 ee 2023 oo uu shalay magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya Mukhtaar Robow Cali. wasiir ku-xigeenka diinta iyo awqaafta Saalax Shariif Sayid ayaa sheegay in guddiga uu magacaabay wasiir Robow ay yihiin kuwo lagu soo xulay hanaan aan sharci ahayn isla markaana aan wax wada tashi ah lagala yeelanin magacaabistooda. guddiga xajka sanadkan 1444 ee uu magacaabay wasiir Mukhtaar Robow ayaa ka kooban 9 xubnood waxaana xubnaha guddiga xoghaye uga dhigay Ibraahim Robow Cali oo ay walaalo yihiin wasiir Mukhtaar Robow Cali. talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo inta badan sanad walba marka uu soo dhawaado xilliga xajka ay sidan oo kale wasiirada diinta iyo awqaafta wasiiro dowlayaasha wasaaraddan ay soo saaraan amre isdiidan oo la xiriira shaqada wasaaradda. guud ahaan daawadayaal waxaa intaa inooga eg warka aad kala socoteen VOF News. tan iyo intaan ku kulmayna warkan warka xiga waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.